qodobka labaad ee aan doonaysna inaan tilmaamo ee ku kaalmeyn karin habeen ka faa'iideysato waa boorinta nabigu uu booriyay calayhi salaatu wasalaam iyo waxa uu ka yidhi habeenkaas iyo ficilkiisu sida uu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiis ku sugan saxiixaynka nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam man qaama laylata alqadri qofkii istaaga habeenka laylatul qadarka ah iimaanan waxtisaaban isagoo iimaankiisu uu aad u fiican yahay oo ilaahay uu rumaysan yahay oo qalbigiisa iimaan ka buuxo oo iimaankiisu u dhammaystiran yahay oo wixii ilaahay ku faral yeelo soon ka mid yahay uu rumaysan yahay waxtisaaban isagoo ikhlaas ka tahay oo daacad ka tahay ilaahayna ka rajaynaya inuu habeenka khayrkiisa waafajiyo qofkii habeenka istaaga nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qufira lahu ma taqaddama min dhanbi wixii dembi uu soo hormarsaday oo dhan waa loo dhaafaya ama dembigaas ha ahaado saqiirada ama kabiirada qaarkood culimada ha ku sheegaan si kasta ha ahaatee nabigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam habeenkaas aad u istaagto adoo iimaankaaga iyo qalbigaaga uu soo jeedo daacadna ay ka tahay ikhlaas ilaahayna ka rajaynayo subxaanahu wa tacaala ajirka faraha badan in ilaahay dembiga uu dhaafayo wuxuu kaloo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam fi saxiix al-bukhari wa muslim inuu yidhi taxaruu leylata alqadri fi 10 alawaakhir min ramadaan habeenka leylata qadarka ah waxaad ka raadisaan tobanka dambe ee ramadaan nabigu ma uusan dhihin waxaad ka raadisaan hal habeen laakiin wuxuu sheegay inay ku jirto tobanka dambe ee ramadaan taa marka waxaan ka faa'iideynaa in tobanka dambe ee ramadaan habeenkeeda iyo maalinteedaba aysan daqiiqadii ka lumin laana maxaa yeelay xilligaa ka raado nabigu yidhi saad ula kulanto marka inaynu tobankaa dambe xoog saarno waxaa ka mid ah caaisha radiallahu canha inay leedahay nabigu calayhi salaatu wasalaam kaana yajtahidu fi 10 alawaakhir maa laa yajtahidu fii ghayrih nabigu aad buu cibaadada ugu dadaali jiray tobanka dambe ee ramadaan si uusan ugu dadaalin xilliyada kale yani caaisha waxay inoo sheegtay radiallahu canha dadaalka nabigu inuu ahaa tobanka ramadaan ama ha ahaato habeen ama ha ahaato maalin muu kala soocin nabigu oo muusan dooran saan u badannahay habeenka 27 iyo 29 iyo 25 iyo muu kala dooran nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay caaisha leedahay tobanka dambe oo dhan uu ku dadaali jiray calayhi salaatu wasalaam xadiiska caaisha waxay leedahay wa annahu idaa dakhala al-10 haddii tobankaasi soo galaan axyaa laylah nabigu habeenkuu nooleen jiray isagoo si guud tobanka maalin habeen u dadaali jiray haddana tobanka dambe habeenkeeda oo dhan wuu nooleen jiray oo cibaado iyo taacad iyo quraan iyo dhikr iyo tasbiix ku nooleen jiray calayhi salaatu wasalaam waxaa intaa wariya wa ayqada ahlahu dadka ehelkiisana wuu toosin jiray ee guriga la joogay xaasaskiisa ah wajadda washadda mizarahu nabiguna guntiga wuu adkaysan jiray يعني wuxuu u xidhan jiray inuu cibaadada ka faa'iideysto walaalayaal nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay dambigiisii dambeeyay kii hore dhaafay hadduu saan u dadaalayo innaga oo dembi badan oo naga dhacay xaggee baan joognaa waxaan u baahannahay tobankan casho hal daqiiqo oo ka mid ah inaysan cidla nooga lumin aan ka faa'iideysano wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam aad u cajiib badan in habeenkan qofkii khayrkiisa laga xarimo oo heli waaya oo ka faa'iideysan waaya faqad xurima alkhayru kulluh qofkaas khayr oo dhan waa laga xarimay qofkii habeenkan ka faa'iideysan waaya oo ajarka iyo khayrka iyo barkada heli waaya oo laga xarimo oo waaya qofkaasi khayr oo dhan wuu waayay walaa yuxrimuhaa khayruha ila almahruum qof loo diido khayrkaana ma jiro ilaa qof aan khayr lahayn mooyaan arrintaas runtii waa digniin nabigeenu uu ka digay calayhi salaatu wasalaam in habeenkaasi uusan cidlo kugu dhaafin arrinka nabiga tamaashanaad waxaa ka mid ah caaisha radiallahu canha waxay tihi rasuulka ilaahayow ara'ayta in calimtu leylata alqadri habeenka leylata alqadarka haddaan ogaado ma ku soo aado ma aquul maxaan idhahdaa maxaan ku ducaystaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam quulii allaahuma innaka cafuwun tuxibu alcafa facfu can ilaahay magacyadaada waxaa ka mid ah cafuun inaad tahay alle wax cafiyana aad tahay
عفس كان أتعشها إلهي عفس سبحانه وتعالى دعاء النبي وحوبر عائشة رضي الله عنها إن كل عيسته دعاء إنه بدينه تمام دنبا دن هبيني معلم سجود يسحور يحل كستان كل بدينه دعاء يدنا وامهين